fadhiista. sidoo kale waxaad dhageysanaysaan waa rasaas aad uga culus oo ka socoto deegaanka Shanta Geed kadib markii ciidamada Soomaaliland la sheegay inay soo weerareen deegaanka Shanta Geed maalmihii la soo dhaafay waxaa jiray xiisad u dhaxaysay SC Khartoum iyo Soomaaliland kadibna markaasi Ceeri Gaabo iyo Shanta Geed iyo Qorlugud iyo Boqorkeen dhaqaale ciidan aad u fara badan oo ka jiray dhaqaalahaasina wuxuu maanta galabnimadan ka bilowday deegaanka lagu magacaabo Shanta Geed waxaana rasaastu markaasi si aad isugu dhacday waxay SC Khartoum ay sheegayaan inay markaasi iska caabiyeen ciidamada Soomaaliland ay dibna u riixeen sida ay warbaahintooda ay ku soo qoreen dagaalkana wali waa socdaa inkastoo habeennimadan xataa dagaalka rasaas goosgoos ay dhacayso rasaasta iyadoo dhimbilo ah ay habeennimadan socoto haddana xaaladdu faraha ayay ka baxday dagaalkanna waa dagaal markaas wuxuu la xiriiraa kii Ceeri Gaabo inkastoo wada hadallo u dhaxeeya Soomaaliland iyo SC Khartoum ay nabadoono ka yimid dowlad deegaanka Soomaalida ay wadeen maalmihii la soo dhaafay ayagoo markaasi tagay Hargeysa kadibna midla sacaanood wada hadalana doonay inay u dhexaadiyaan dadka SC Khartoum ka soo jeedo iyo Soomaaliland arrimahaasi ayadoo lagu dhex jiro ayaa haddana wali dagaal oo markaasi socdaa waxaad dareemi kartaa mar walba Soomaalida wada hadal markaasi loo bilaabo meel walba ay joogaan oo markaa la isku soo dhawaado la isku dayo xabad ayaa bilaabato hadda sida wararku ay sheegaan ciidamada SP loo yaqaano oo beesha habar jecel ayaa weerar ku soo qaaday dhanka Qorlugud ayayna ka soo baxeen waxayna weerar toos ku soo qaadeen deegaanka Shanta Geed sida ay wararku ay sheegayaan xaalad culus ayaan halkaas ka jirto dagaalkuna waa sii xoogaysanaya SC waxay sheegeen inay maxaabiis iyo gaadiid ay ka qabsadeen inkastoo dhanka kale ay Soomaaliland aysan ilaa hadda warbaahintooda waxba aysan soo qorin dagaalka inuu socdo kaliya ayay sheegeen waliba xaaladdu faraha ayay ka baxaysaa nabadii la doonay in markaas dadka lagu dhaxaadiyana gabi ahaanba meesha ay ka baxaysaa waxaana dareemi kartaa in dagaal oo loo diyaar garowday waxa loo diyaar garoobo dhamaan shalay waxa arkayseen oo idin soo gudbinay nin sargaala oo ka tirsan beesha warsangeli oo dhahayo dagaal waa inaan galnaa marka dagaal gasho oo dagaal u diyaar garowdo kadib ayaa nabad u imaanaysaa laakiin hadaa nabad u diyaar garowdo dagaal ku qabsanayo marka halka waxa ka dareemi kartaa in mar walba dagaal loo diyaar garoobay oo cid walba ay doonayso inay dagaal gasho marka dagaalo kale iyo xisado kale oo ka jira gudaha Soomaaliya iyo dowlad deegaanka way jiraan xaaladahaas oo dhan oo isdiidan ayaa wali socdo laakiin hadda dagaalka ugu culus wuxuu ka socdaa Shanta Geed warbaahintan waxay soo qoraysaa in dhaawac iyo dhimasho oo labada dhinac soo kala gaaray ilaa iyo haddana markaasi xabadu ay socoto taas marka waxay daba socotaa magaalada Ceeri Gaabo sababtoo dagaalkan hadda dhankan ka dhacay Qorlugud iyo kii kale ee xagga ka socday way kala duwan yihiin sababtoo xagga dagaalka wuxuu ahaa fuqufuli meel yiraahdo dib qarax iyo halkaas ay dagaalku ka socday haddana dhankan u soo wareegay oo Qorlugud u soo wareegay marka mar walba waxaad dareemi kartaa in xiisada marba dhinac ay Soomaaliland ka bilaabayso oo SC Khartoum nimanka la jahwareeriyay marka halkaas ay xaaladdu ka socotay halkaas barashar ku saarnaa hadda Qorlugud Shanta Geed haddana baash ka bilaabatay oo haddana dagaalkii loo soo wareejiyay dhibaatadaasina waxa keenayo ciidamo fara badan oo sanad military wato oo markaasi waxa way magacyo lagu kala qortay waqtiga musabixi horta ciidamadan qabilaadka way jireen laakiin magacyo lagu qoran jiray ma jirin SSB iyo G36 iyo waxa meesan jirin hadda SSB waxa lagu leeyahay waa habar jeclo G36 waa habar yonismiya waxyaabo saas ah ayaa hadda soo baxay jabhado ay isku bedelay Soomaaliland oo qayb ay isku kala go'een arrintaasna Cabdiraxmaan Ciirad wuxuu leeyahay waa in laga hortagaa oo gabi ahaanba la baabi'iyaa SSB iyo G36 iyo waxyaabaha la qorqoray faraha badan in la joojiyo waa si markaas ciidamada Soomaaliland ee militariga loogu wareejiyo meel walba mar walba ciidamo markaasi isku dhinac ah ee haddana kala socday magacyo kala wato waa dhibkeeda leeyahay marka wuxuu leeyahay waa in la joojiyo gabi ahaanba oo ciidamada militariga oo nuuxtaan hogaamiye meesligiya hadda si u fiirsan ciidamadan dagaalamayo dharka militariga labisiin haddana qaab beelada u socdaan oo waxyaabaha meelaha qaar koonfurta Soomaaliya ka jiro oo aad arkaysid hadda saacad ilaa ka soo kala markay isdagaalayeen dad darees military wato oo haddana dagaalamaya qaab qabiil u dagaalamaya oo haddana dareeskan military oo watan qofkan muxuu askari caadi ah ma dareeska magaalada ku soo gato suuq yaala marka waxa ka dareemi kartaa waxba kama qaban kartid marka dagaalada qabiilaadka Soomaaliya ku soo bateen inta badanna wax la isku dilay wax aan macno lahayn dhulkana haysataa ceelaad iga haysataa waxba ay qabsatay marka xiisadaas iyo waxa meesha ka dhashana uu si weerana oo Xamza Cabdi Baradhahay imisaa jahanama naga gashay usbuucii la soo dhaaf in imisha dhimatay oo dagaal qabiil ku dhimatay oo janna naarta aad doolay qof kasta oo dagaal qabiil ku dhinto oo qabiil asagoo u helnayo qabiilkiisa qabiil kale soo dilaa waa ahlunaar kan wax weeraraya iyo kan soo weeraray waa ahlunaar sababtu waxay tahay wuxuu u dagaalamay qabiil oo aaminsan yahay nin walaalkiisa oo muslina masaajidkooda galeen shalay saaxiib ahayna wada ceeshayeen ayuu maanta xabad ku dilaya oo leeyahay waa qabiil hebel kan kalena waa sidoo kale haddii marka dilo iyo haddii asaga la dilaba labada dambiilayaal waa ahlunaar yaal taasna waa waxa mar walba way cadahay waxa la isku dilayo wax rasmi ah oo qofkan lagu soo duulay dhulkiisa la qabsanayo haday tahay
qofkaas dhulkiisa la qabsanaya inuu isdifaaco oo xaq u leeyahay sababta dhulkiisa laga kacsanayo oo la barakicinaya laakiin nin aan dhulkiisa la qabsanaynin oo markaasi maxaa la dhahaa la isku haysto keliya xuduudo ama deegaano la isku haysto taas dagaal qabiil oo noqonaya laakiin qof meel iska degan ama hadda Somaliland oo kale markay soo duushay laascaanad ay ku habsatay markaas kale reesisi way dhibanaay sababta waa lagu soo duulay dhulkooda lagu qabsaday gabdhahooda la kufsanayay xabada la daba taagnaa hadda culayska waa iska qaadeen marka hadda waxa la isku haystaa waa xuduudkii labada meel ay joogeen oo la isla fadhiyay oo hadda cid wax ka maqan aysan jirin qolo walba meesheeda degnaan karto haddana xabada la isku bilaabaya oo leeyahay lagu dagaalamo cerigaabo kale dagaal ka socdo waa run magaalo la wada dagaal la isku haystaa magaaladaas la wada degana in nabad lagu wada noolaado lama rabo qolada kale ay leedahay anaa ku noolaana adigna kuma noolanaysa laakiin qof aan lagu soo duulin oo markaasi maxaa la xuduudkiisa laba ciidan sar fadhido mar walba is dagaalayaan shaki la'aan waay mar walba ciidan sar fadhiyo oo difaac ku kala jiro waqti ay noqotoba xabadda isku bilaabayaan hadda goor muqdisho dhex mari jirnay waxaa magaalada muqdisho u kala qaybsanayd laba qayb meeshaan la yiraahdo jidka maxaa la yiraahdaa jidka waxaa la yiraahdaa wadnaha ayaa ciidamada markaasi kooxda al-shabaab ay u lahayd waxay ku lahaayeen control laamiga markaad ka timaado dhanka iyo dabka waxaa soo dhex maraysa ciidamada dowladda wax maxaa la dhahaa 100 tilaabo ka yar isku jiraan ciidamada dowladda iyo kuwa shabaabka markaad wadada wadnaha aad fuushidna oo isgooska bakaaraha aad ka fuushid ciidamada kala jooga oo maxaa la yiraahdaa shabaabka marka intaad adiga dhex marayso inaad xabad isku bilaabato halis dadkiina waa socdaan boqolaal la socdaan kumanaan la socdaan intaas sirta meesha aad ka goynaysid xabad ilaahu iskugu bilaabana leeda waqti kasta isku bilaabaya marka waqtigaas muqdisho ay kala qabsanayd oo kaleeto ciidamada soo fadhiyeen habeen isku bilaabayaan duhur isku bilaabayaan subax iska bilaabanay xabad dhacday ee soo raacay kuwaana waa sidoo kale waa ciidamo soo fadhiyo waqti kasta xabad isku bilaabi kara hadda xabad caadi waqti aan la filin iska bilaabanay marka ciidan soo fadhiyo meel la isugu geeyo hub haysto oo sanad military haysto oo dagaalamay dhibkiisu waa badan yahay waxa fiicnaan lahayd SC qaatuman in maamulkeeda loo daayo la yiraahdo niyo maamulkiina haysta annaga ciidamada xuduudda joogana control caadi aan samaysan ama la isku furo isku socodka gaadiidka qolo walba qoladeeda barnaamijkeeda ha qabsato sababta maamulka Soomaaliya ka jiraan SC maamul way noqon kartaa Somaliland waa maamul way noqon kartaa haddii Somaliland leedahay dadkan wuxuu ku qaadanana de ma soo rogelayso waxyaabihii marka hore aan sheegayna kamid tahay in qoom dhan lagu duulo lagu habsado wax soconay ma haddii SC qaatuman intee baxday Somaliland ku habsatana de wax soconay ma marka waxaa dhihi lahayn labadooda ha kala joogaan qolol meesheed ha joogto ha imaansato cerigaabo ma tahay ha odayaasha iyo wadannada garta hadda ku jiro oo heshiiska wada beesha absamee ka yimid dowlad deegaanka ha loo daayay si ay u nabadayaan Somaliland waxay ka soo heleen confirm in nabad la qaato haddana SC qaatuman dhex joogaan laascaanada joogaan confirm ay ka sugayaan garaadada shir u socda ay beesha warsangeli ayada loo soo diray inkastoo warka qaar ay sheegayaan in beesha warsangeli nabadonnada kusoo celisay dhaan waxaan ugu talisana ogolnahay haddana waxa way wada hadalkii oo socda ayaa xabad la bilaabaya xabadaasna dhibaato keenaysa waan la sii kala fogaanay ilaahay ummadda Soomaaliyeed qalbigooda ha isku soo jeediyo dhibaatadana ha ka qabto inta barnaamijka la kulma doono fi amaan illah